السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن دمانتين با ميل والبوا دافع عالم كان نقلت شان قاديسان هالكني واي اس تي في كسر دوادا وركي او ساعدها نوكلا نوغا براتين ناس توسيدين كسو تبينو استوديو هاي اس تي في مقالة جيجيجا ورك واحدين كو ديارة وانيقو محمد أحمد عمر qodobada ugu door karoona wararkan idin ku hayana waxa kamid ah madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa bulshada dalka gaar ahaan bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Adha madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo kormeeray mashaariicaha biyo xidheennada kulamana la soo qaatay shacabka gobolada Jarar Qorxay iyo Shabeelle qodobada kale dheehan doontaan waxa kamid ah kulan ku saabsan si xoojinta hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suubanna ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Jigjiga intaas akhyaar waa qaar kamid ah qodobada aad wararka ku daawan doontaan qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsanba u diyaar garoob markale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa bulshada dalka gaar ahaan bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Adha wariye Xasan Ciga Ismaan ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo soo koobaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka Itoobiya siiba shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Adha ayaa waxa uu rajeeyay inay u noqoto ciidii farxadda baraaraha iyo barwaaqada horumarka iyo nabadgelyada isla markaana bulshadu ay ku ciidaan si farxad leh oo nabadgelyo ah madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa muslimiinta deegaanka ku booriyay inay sii xoojiyaan iscaawinta iyo isgarabsiinta gaar ahaan in bulshada danyarta ah laga farxiyo maalmaha ciidaha loo dabaaldegayo isla markaana qofba qof uu ka hayn rooyahay uu waxtaro madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu sheegay in bulshada muslimiinta looga baahan yahay inay il gooniya ku eegaan cadawga kala duwan ee gabaadka ka soo dhiganaya diinta isla markaana raba inuu waxyeeleeyo sumcadda iyo waliba jiritaanka ummadda muslimiinta iyaga oo wata dana gaar ah oo ku soo gabanaya diinta islaamka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo kormeeray mashaariicaha biyo xidheennada kulamana la soo qaatay shacabka gobolada Jarar Qorxay iyo Shabeelle Cabdi Cumar ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo haya socdaalkan madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdigii la socday ay ku soo mareen mashaariicaha horumarineed gaar ahaan mashaariicaha waraabka iyo kulanadii kala duwanaa ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdigiisu ay la yeesheen bulshada ku dhaqan magaalooyinka Dhagaxbuur Qabri Dahare iyo Goday ayna kaga wada hadlayeen sidii bulshada loogu abaabuli lahaa ka faa'iideysiga wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale mashaariicaha horumarineed ee kala duwan waxaana wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka baxay magaalada Jigjiga ay sii mareen jidka laamida isku xidha magaalada Jigjiga iyo Dhagaxbuur iyadoo intii jidka ay ku sii guda jireen madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu la kulmayay bulshada degan agagaarka jidka oo ay xog wareysanayeen waxa kale wafdigu uu sii maray isla markaana indheeyeen mashaariicaha biyo gelinta ee Galiil Sandoore Coballe Sacuudi Boodaley Dhagaxboxor iyo Higleley oo dhererkoodu dhan yahay 57.5 kilomitir wajiga koobaad waxaana mashruucan biyo gelintu ka kooban yahay 16 goobood goobaha dadku ka cabo ee loo yaqaan water pointyada 9 darka xooluhu ka cabaan iyo 6 reservoiro ama haamaha biyaha kaydiya oo midka laga wado tuulada Coballe uu qaadayo 500 oo mitir cube oo biyo ah isla markaana madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale la socotay ay indheeyeen injineerada gacanta ku hayana ay warbixin ka siiyeen mashruucan biyo gelinta ee la rabo in bulshada laga saaro oo manaha waxaan inta kadib waftigu u dhaafay dhinaca magaalada Dhagaxbuur iyadoo markii ay gaadheen magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jararna si diiran loogu soo dhaweeyay isla markaana madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu kulan kula yeeshay shacab ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur oo si diiran u soo dhaweeyay isla markaana madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee shacabka magaalada Dhagaxbuur intaas kadibna in ujeedada socdaalkoogani tahay kormeer ay ku soo sameeyaan mashaariicaha horumarineed gaar ahaan mashaariicaha waaweyn ee waraabka ee xukuumaddu ay wado hirgelintooda ay ka mid ka yihiin mashruuca waraabka ee Baka Goomar Wujuwaati iyo sidoo kale Maraacato waxaan u soconay mashruuc halkan Baka laga sameeyo kaasa ku socday biyaha waad garanaysaa Soomaaliya toga Dhagaxbuur biyaha fara badan iska socday biyaha laga faa'iideysanaya oo la qabanaya biyaha xilli roobku daayay isaga laga faa'iideysan
markana meelihii lagu qaban lahaa lagu xidhi laabaan aan sameyn hadda inta kadib madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo mas'uuliyiintii kale ee ku heelinaysay ayaa waxa ay booqdeen hosbitaalka Dhagaxbuur oo ay dhex goosheen indheendheeyeenna gudaha hosbitaalkan oo uu ka warbixiyay maareeyaha hosbitaalka Dhagaxbuur adeeg bixinta iyo xaaladda hosbitaalkan iyadoo inta kadibna madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu la hadlay dhakhaatiirta xirfadlayaasha iyo shaqaalaha ka howlgala hosbitaalka Dhagaxbuur oo uu ku booriyay inay ilaaliyaan adeeg bixinta bulshada ay siiyaan iyo kor u qaadida suncada adeeg bixineed ee mar walba bulshada ay siiyaan maankana ku hayaan in adeega ay bixinayaan uu noqdo mid ay ku dheehan tahay muwaadinimo iyo anshax wanaag kuna booriyay dhakhaatiirta xirfadlayaasha iyo shaqaalahaba inay muujiyaan kogonaansho dheeriya oo bulshada ay u adeegaan u soo doonanaysa adeeg caafimaad si firfircooniya wafdiga oo habeenkii ku dhaxay magaalada Dhagaxbuur ayaa subaxnimadii la kulmay shacab ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur oo kulan uu kula qaatay madasha kulanada ee magaalada Dhagaxbuur iyadoo halkaasina madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu kaga hadlay ujeedada socdaalkan uu ku kormeerayo mashaariicaha horumarineed bulshadana ku booriyay inay ka faa'iideystaan wax soo saarka beeraha oo ah tubta kaliya ee lagu jabinayo saboolnimada xukuumaduna ay la barbar taagan tahay waxyaabaha muhiimka u ah falashada beeraha soo indheeno horumarka gaar ahaan mashaariicda meesha marayaan hadda ka hor howlkan qorshayaal aan kala qaadanay baa jiray waxa weeyaan shacabka maxaa la jira xukuumaddana maxaa la jira xukuumadda waxa weeyaan waxaa la jira inay nidaamkii lagaga bixi lahaa ay tusaale u noqdo ay keento weeyaan wax xukuumadda la jira iyo nidaamkii lagaga bixi lahaa guud ahaanba maxaan kula kaabayaasha dhaqaalaha oo kale inay iyadoo abuurtay laakiin intii laga baxo saboolnimada shacabka waxaa looga baahan yahay fikirka mashaqaystanimada in laga baxo qaar kamid ah waxgaradkii iyo haweenkii ka soo qayb galay kulankan ka qabsoomay madasha kulanada ee magaalada Dhagaxbuur ee uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo iyaguna la wareegay mikrofoonka ayaa tilmaamay inay ka faa'iideysanayaan wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale mashaariicaha horumarineed ee xukuumadooda u hirgelisay mahadnaq ballaaran oo soo jeedisay dadaalka ballaaran ee xukuumadda ay ku doonayso sidii loo tirtiri lahaa saboolnimada intaas kadib wafdiga hogaaminaya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa uu ka ixtimay soo indheynta iyo soo kormeeridda mashaariicaha waraabka ee waaweyn ee xukuumadda deegaanku ay gacanta ku hayso hirgelintooda iyadoo wafdigana uu ka bilaabay kormeerkani mashruuca waraabka ee Baka iyadoo mashruucana uu si habsami loo socdo isla markaana hawlweednada mashruucani ay ku hawlan yihiin sidii muddada loogu talagalay muddo ka yar ay u soo gabagabin lahaayeen iyadoo mashruucana uu qaybsamo qaybo kala duwan qaybta maamulka biyaha ee loo yaqaano headworkiguna ay ku dhowdahay gabagabo iyo qaybta qaybinta biyaha ee kanaalka koobaad ama kanaalka ugu weyn iyo kanaalada kale ee lagu qaybinayo biyaha mashruucana uu dhan yahay 3,000 oo hektar looguna talagalay in looga faa'iideeyo in ka badan 3,000 oo qoys laguna jabinayo xayndaabka saboolnimada iyadoo madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo mas'uuliyiintii kale ee la socotay ee kormeerka ku sameeyay mashruucana ay indheeyeen habsami socodka mashruucan oo injineerada gacanta ku haya mashruucani asharaxaad dheeri ka siiyeen habsami socodka mashruucan iyagoo tilmaamay in mashruucan ay xilli kooban ku soo gabagabeynayaan madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa ku booriyay injineerada in xilliga u dhaqsaha badan ay ku soo gabagabeeyaan mashruucan ka hor intuuna roobku bilaabmin halkan aan taaganahay waxa weeyaan waa Baka mashruuci mataqaana irrigation Baka runtii waxa weeyaan shaqadan gabagabay ku dhowdahay marka waxaan soo jeedinayaa gabagabadan in la israaciyo waxay taagantay meesha ugu dambeysay haddii la israacin waayo dhibaatay noqonaysa dib u soo noqonaysa kolkaas kadib markuu halkan u dhamaado meesha ka bilaamaysa in boondiyada iyo laga shaqeeyo maxaan ku rahaa boondiyada iyo laga shaqeeyo waxa weeyaan kanaalada ama waxa main kanaalka ama haato ama secondary kanaalka haato ama field mataqaana irrigation kanaalada ha ahaadaan intaas way dhib yaraanaysaa mar haddii isticmaalkii iyo biyihii faafaneed ama biyihii jarreed haddaan maamulayno oo la maamulayo kolba dhinacii la rabo loo leexin karo intii la rabana laga qaban karo intii la rabana la sii deyn karo kolkaas waxa weeye maxaan ku raayay waa qacanteena ku jirta wax kasta ka dhigan tahay sidoo kale wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne cabdi maxamuud cumar waxa uu booqday mashruuca waraabka ee Goomar oo isaguna si lamida mashruuca Baka u socda mashruucana sidoo kale uu dhan yahay 3,000 oo hektar qorshihiisuna yahay in looga faa'iideeyo 3,000 oo qoys ama in ka badan shaqadiisuna si habsami leh u socoto isla markaana ay kor goosheen indheeyeenna madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo mas'uuliyiintii kale ee la socotay injineerada gacanta ku haya mashruucan waraabka ay sharaxaad dheeri ka siiyeen geedi socodka mashruucan iyagoo tilmaamay in ay ku hanweyn yihiin in xilligii loogu talagalay xilli ka dhow ay ku soo gabagabeeyaan dhawaana mashruucani laga faa'iideysan doono inta kadib wafdiga ayaa u kicitay dhinaca iyo indheynta mashruuca kale ee waraabka
ee Wujuwaji shaqooyin badan laga qabtay mashruucan meel fiican maraya iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii la socdayna ay kormeereen mashruucan kor iyo hoos isla markaana indheeyeen mashruucan iyo qaabka shaqadiisu ay socoto hawlwadeennada gacanta ku haya mashruucana ay u sharaxeen mashruucan iyo geedi socodkiisa iyo qaybaha kala duwan ee mashruucani uu ka kooban yahay una qaybsamo mashruucan waraabka ee Wujuwajina si habsami leh u socdo la rabana in looga faa'iideeyo bulsho gaaraysa 3,000 sidoo kale madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiintii la socotay waxay soo kormeereen mashruuca waraabka ee Maraacato iyadoo mashruucana uu ku dhow yahay gabagabo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii la socdayna ay dhax goosheen indheeyeenna mashruucan waraabka ee Maraacato iyadoo mashruucana uu qaybsamo qaybo kala duwan qaybta maamulka biyaha ee headworkiga loo yaqaano iyo sidoo kale qaybinta biyaha ee kanaalada iyo boondiyada kala duwan biyaha kaydinaya waxaana mashruucan looga faa'iideysanayaa dhul dhan 9,000 oo hektar loogana faa'iideynayo bulsho ka badan 9,000 mashruucan waraabka ee Maraacato ayaa maraya gabagabo waqti xaadirkana ay socoto shaqada xaalxaalka ee mashruucan madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiintii la socotay ayaa inta kadib kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Qabri Dahare iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ugu horeyn u mahadnaqay soo dhaweynta diiran ay kula hor yimaadeen bulshada ku dhaqan magaalada Qabri Dahar intaas kadibna ka warbixiyay ujeedada socdaalkoogan deegaankana san la socotay maalinta ka dambeysay marxalada kala gedisan buu ku jiray xukuumaduna 5 sano u dambeysay waxay qaadatay inay waxa weeyaan deegaanka guud ahaan gaarsiiso horumar ballaaran oo dhan walba ujeedada u nimidna waxay ahayd inaan soo kormeerno ama aan eegno mashaariicda meesha marayaan waxaan soo indheeyno mashaariicda horumarka ka socda waxa weeye deegaanka gaar ahaan faafan togo faafan haddii noqoto Baka iyo Goomar Wujuwaji iyo Maraacato marka xaqiiqin mashaariicdaas markaan soo eegna shalay meel fiican bay marayeen qaar kamid ah waxgaradkii iyo bulshadii ka soo qayb gashay kulankan ka qabsoomay madasha kulanada ee magaalada Qabri Dahare ayaa iyaguna mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dadaalada horumarineed ee xukuumadda deegaanku ay ku hawlan tahay iyagoo ka marxaati kacay mashaariicaha horumarineed ee dhan walba leh ee xukuumadda deegaanku ay ka hirgelisay guud ahaan deegaanka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiintii la socotay ayaa intaas kadib u dhaafay jidka laamida isku xidha Qabri Dahare iyo magaalada Goday iyadoo intii ay ku sii guda jireen jidka laamida ee u dhaxeeya magaalada Qabri Dahar iyo Godayna lagu soo dhaweeyay magaalada Dhanaan iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Dhanaanna ay si diiran u soo dhaweysay madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumarna uga mahadnaqay bulshada Dhanaan sida diiran ay u soo dhaweeyeen intaas kadib madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii la socday ayaa gaaray magaalada Goday iyadoo ay galeen amin fiida aroornimadina madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiintii la socotay ay dhax goosheen magaalada Goday isla markaana bulshadu ay si diiran u soo dhaweysay madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii la socotay iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiintii la socotayna ay shaah ka cabeen makhaayadaha shaaha ee magaalada Goday inta kadib madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Goday iyadoo kulankaasina uu ka dhacay madasha kulanada ee magaalada Goday isla markaana madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar halkaas uu ka soo jeediyay jidada socdaalkooga madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa bulshada ku booriyay inay ka faa'iideystaan wax soo saarka beeraha ugu dambeyntiina qaar kamid ah waxgaradkii ka soo qayb galay kulankan uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ee ka qabsoomay madasha kulanada ee magaalada Goday ayaa bogaadiyay horumarka dhan walba leh ee xukuumadda deegaanku ay hirgelisay sanooyinkii u dambeeyay iyagoo tilmaamay in iyana doorku ay ka soo dhalaali doonaan kuna dhiiranayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka guntigana u gaabsanayaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen wax soo saarka dhulka iyo horumarka qaybihiisa kala duwan ee xukuumadda deegaanku ay uga faa'iideynayso waqti xaadirkan kulan ku saabsan sii xoojinta hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdirasaaq Ibraahim Midaaja ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan soo koobaya
shiray ka soo qayb galeen waxgaradka cuqaasha hooyooyinka dhalinyarada iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan 20 xaafadood ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan shirkan oo ay ujeedadiisu ahayd sidii loo sii xoojin lahaa howlaha horumarka nabadgelyada iyo waliba maamulka suuban iyo barnaamijka maamulka iyo cadaaladda ayaa waxa shir gudoominayay hoggaan ku xigeenka maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gadwadeenka geedi socodka sugidda amniga iyo xasiloonida ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo ugu horreynna halkaas khudbadda xalgala ka soo jeediyay hoggaan ku xigeenka maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Ibrahim Maxamuud Mubaarak isagoona aad ugu mahadceliyay guud ahaan shacabweynaha ku dhaqan 20 xaafadood ee maamulka magaalada Jigjiga sida ku dayashada mudan ee ay ugu xiran yihiin booliska oo galana shaqeynayaan sugidda nabadgelyada maamulka magaalada Jigjiga isla markaasina ku booriyay shacabka 20 xaafadood ee magaalada Jigjiga iyo waliba shacabka guud ahaan deegaanka inay sii xoojiyaan howlaha horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo waliba barnaamijka maamulka iyo cadaaladda sanadkan ee cusub ee 2009 ka tirsan taariikhda dalkeena Itoobiya qabaleyada iyo gudiyada nabadgelyada iyo isku dhafyada aandhilaamistiga sida isxilqaanka iyo kartidu ay ku dheehan tahay ee wadaniyada ku dheehan tahay ee aad uga qayb qaadataan nabadgelyada idinkoo iskiisu xilqaamaya ee aad ula shaqaysaan booliska taasi markaa waa mid aan marnaba la ilaawi doonin in haddana aad nabadgelyada uga sii qayb qaadataan ood sii xoojisaan ood sii labalaabtaan ayaan idin soo jeedinayaa kasoo qaybgalayaasha shirkan ayaa dhinacooda sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin nabadgelyadan ay ku naaloonayaan ay u soo hooyeen ciidamada gaarka ee iyo booliska isla markaasna ballan qaaday inay dhinacooda qayb libaax ka qaadanayaan nabadgelyada guud ahaanba ka jirta deegaanka isla markaasna si dhaadhicinayaan isku xidhnaanshaha shacabka ee halku shanta sanad wanaagsan baan ilaahay waa ciid wanaagsan iyo sanad wanaagsan oo isgalay waa wax lagu farxo weeyaan nabadgelyadeena halka maanta ay marayso iyo heerka ay marayso waa alxamdulillaah rabbil caalamiin annaguna maadaama nahay maamuladii 20 qabalay ee maamulka magaalada Jigjiga waxa weeyaan aad iyo aad baan maaragtay uga hawlgalaynaa andhilaamstiyadeedu waan dhaadhicinaynaa say tahay baan u qabanaynaa gabagabadii shirkan lagaga wada hadlayay si adkeynta howlaha nabadgelyada iyo waliba maamulka suuban ee ay ka soo qayb galeen shacabka ku dhaqan 20 xaafadood ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxaa la isku gartay in la sii xoojiyo barnaamijka maamulka iyo cadaaladda sanadan ee cusub ee 2009 tirsan taariikhda dalkeena Itoobiya munaasabada lagu soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2009 ayaa ka qabsoontay degmada Hargele Lumaan Cabdi Axmed ayaa warbixin umurtaasi ku saabsan Hargele ka soo diray munaasabadani ballaadhan oo lagu soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2009 isla markaana lagu sagootinayay sanada 2008 waa tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Afdheer kan degmada Hargele bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha waxgaradka hooyooyinka dhalinyarada ayaa ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka Afdheer ee magaalada Hargele munaasabadani oo ahayd mid ayna u kala hadheen caruur iyo ciroolaba ku dhaqan magaalada Hargele ayaa waxa ay bulshadu ay siteen calamada kan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo kan deegaanka iyo waliba boorar ay ku qornaayeen waxaanu ku faraxsanahay soo dhaweynta sanadka cusub kaasi oo ku soo beegmay xilli uu deegaankeena uu ka farxashay isla markaana laga tirtiray ururada nabadiidka oo ay kamid ahaayeen ururka UBO oo asagu laf dhuun gashay ku ahaa horumarka iyo kobaca deegaanka haddaba waxa kulankaasi ka hadlaya mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha maamulka gobolka Afdheer mudane Axmed Shun Sugule iyo waliba kusimaha gudoomiyaha degmada Hargele ahna madaxa xafiiska caafimaadka ee degmadaasi mudane Axmed Soocane kuwaasoo halkaasi ka soo jeediyay khudbado ku aadan gulihii lama ilaawanka ee xukuumaddu ay ka soo hoyisay muddooyinkii ugu dambeeyay dhanka horumarka nabadgelyada iyo waliba maamulka suuban ودجيي حزبك ديمقراطية شعبك الصومالية نبتقليدا هرمركا iyo maamulka suuban ayaan hirgelinaynaa waxaan kor u qaadaynaa kana miro dhalinaynaa horumarka qaybihiisa kala gedisan dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka biyaha ceelasha dhaadheer iyo dhaamamka guud ahaan waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo sanad wanaagsan iyadoo 2008 lagu soo xasan karayo
horumarkii iyo maamulkii suubanaa ee lasoo qabtay 2008 kuwaasoo iskugu jira caafimaad waxbarasho iyo beero iyo biyo waad xasuustaan waxaa taariikh la xusaa ama mataqaanaa in la xasuusto 2008 yoolashii waaweynaa ee ka dhaqangalay ama ka hirgelay mataqaanaa deegaankeenna dhanka kale waxaa ayagana ka hadlay odayaashii iyo weliba waxgaradkii ka soo qaybgalay kulankaasi kuwaasoona soo dhoweeyey sanadka cusub ee 2009 tilmaamayna inay xukuumaddu oo guulo wax ku ool ah ay ka soo hoyisay muddooyinkii ugu dambeeyey dhanka horumarka iyo nabadgelyada ballan qaadayna inay garab istaagi doonaan dhankooda howlaha horumarka nabadgelyada iyo weliba maamulka suuban ee xukuumaddu ay ku howlan tahay sanadkii hadda 8 naga tagtay 9 baan galay waa inaan horey u guuro oo wixii hadda aan hayno ee aan qabanay dhanka nabadgelyada dhanka horumarka markaan niraahdo dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka biyaha dhan kastoo la eego meesha maanta aan taagannahay inaan hore uga talaabsanaa loo baahan yahay hargeelow sidaan hore u ballan qaadnayna waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida maamulka gobolka ka degmada iyo dhammaan cidda jecel nabadgelyada iyo horumarka inaan la shaqayno haddaan hargeel haddaba intay munaasabadani socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay agab dhaqameedyo ka turjubaya hidaha iyo dhaqanka uu deegaankeenu uu leeyahay iyo weliba gabayo iyo buraanburo ku aadan soo dhoweynta sanadan cusub waxaa kaloona intay munaasabadani socotay xiise gaar ah u sii sameynayay kooxda fanka iyo hidaha iyo dhaqanka ee degmada Hargele oo ayagu halkaasi wacdara ka muujiyay Lumaan Cabdi Axmed telefishinka caalamiga ah ee ESTV xarunta maamulka gobolka Afdheer magaalada Hargele munaasabada ku saabsanayd soo dhaweynta sanadka cusub ee 2009 ayaa waxay sidoo kale ka qabsoontay degmada Jarati Jamaal Axmed ayaa warbixintan ka soo diray munaasabad qayb ka ah sanadka cusub ee dalkeena Itoobiya ayaa waxay ka dhacday madasha shirarka ee degmada Jarati ee gobolka Afdheer munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Jarati iyo maamulka degmada Jarati ayaa waxay qayb ka ahayd dabaaldega sanadka cusub ee dalkeena Itoobiya oo ay ku soo beegantay xilli uu gebi ahaanba deegaanka ku talaabsaday horumar dhinacyo badan ah oo dib u soo laabad lahayn munaasabadan sanadka cusub ee 2009 tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay ku-siisimaha gudoomiyaha degmada ahna hoggaanka nabadgelyada degmada Jarati mudane Axmed Nuur Cabdullaahi Digaale waxa uu ka sheegay in sanadkii tagay 2008 oo ahaa sanad degmada Jarati laga qabtay horumar sal ballaaran iyo nabadgelyo la isku halayn karo sidoo kalena waxa uu mas'uulku cadeeyay in la sii wadayo horumarka iyo nabadgelyada ka hana qaaday degmada Jarati lana sii xoojinayo dhinacyadii adkaa lagana feejignaanayo dhinacyadii jilicsanaa ee 2008 si ayna ugu soo gudbin 2009 sanadka cusub ee 2009 waxa loo baahan yahay in aan sidii horumarka iyo nabadgelyada maamulka suuban aan u garab taagnayn ee horumarka u wadnay nabadgelyada oo shaqeynay inaan si dardar gelino 2 jibaar 3 jibaar 4 jibaar 5 jibaarna si dardar gelina loo baahan yahay waxa aad aaminto ee aad higsato waad gaadhaysaa waynu gaadhaynaa taasna waxa ayaguna dhankooda ka hadlay bulshadii ka soo qayb gashay kulankaasi kuwaasi oona soo dhaweynta sanadka cusub ka bacdi sheegay in ay ka qayb qaadanayaan howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee xukuumadda haatan ku howlan tahay waxaan is wadanaa gacmaha halganka isku meel baan kaga jiraa amniga iyo horumarka iyo nabadgelyadaba guul ballaaran baan ka soo hoynay waxaan higsanaynaa maadaama ilaahay nabadgelyadii noo xasiliyay waxaan higsanaynaa horumar iyo nabadgelyo ballaaran Jamaal Axmed Maxamed ESTV degmada Jarati ee gobolka Afdheer wali akhyaaray halka warkaas sida tooska idinkaga imaanayaan waa stuudiyaha ESTV ee magaalada Jigjiga kulan lagaga hadlayay howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayaa ka qabsoomay degmada Erar ee gobolka City Cadaalad Cabdi Fataax ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo diray shir lagaga wada hadlayay si xoojinta howlaha xisbiga horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee sanadan cusub ee 2009 ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka degmada Erar shirkan oo ka soo qayb galeen dhammaan maamul qabalayada hoos yimaada degmada Erar ee gobolka City
shirkan uu hogaaminayay madaxa xeer ilaalinta iyo cadaaladda gobolka City oo ku weelinayeen gudoomiye ku-xigeenka degmada Erar ayaa waxa uu horeyn shirkani ka hadlay madaxa xeer ilaalinta iyo cadaaladda gobolka City mudane Cumar Macallin isagoo sheegay qorshaha cusub ee sanadan 2009 in loo baahan yahay in la saxo gobduleelooyinkii 2008 iyadoo laga tusaale qaadanayo si loo taabageliyo horumarka. waxaan halkan iskugu nimid maanta inaan isu soo gudbino ama aan idin soo gudbiyo qorshihii xisbigeena dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu u dhigay sanadka 2009 ee dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo dhinaca xisbigaba qorshahaas oo la doonayo in loo dhaadhiciyo qabale loo soo dhaadhiciyo oo qabaleegu qorshihii uu ku shaqeyn lahaa sameeyo si hadhow toole qorshaha fulintiisa iyo dabagalkiisa iyo qiimeyntiisuba ay u fududaato oo ay ugu fududaato qaab dhismeedka hoose ee qabaleega. sidoo kale ku-xigeenka gudoomiyaha degmada Erar mudane Saacid Bedel oo shirkani ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay ka wada shaqeynta caafimaadka biyaha beeraha iyo dhammaan horumarka qaybihiisa kala duwan si bulshada loo gaarsiiyo horumar waara. buuggan aan heer degmadu idin dhiibeyno wuxuu idin yahay tilmaame ama directive waxa la yiraahdo sanadkii 2008 halka aynu sector kasta taagnay adeega waxbarashadaynu haysanay macallimiintaynu haysanay barnaamijku halkaynu taagnayntii aynu ka kacayno 2009 adinkuna qabalihiinaad ku bees garanaysaa xarumahaad lahaydeen macallimiinta kugu qornaa ardaydeedin joogtay meesha talaalka marayseen barnaamijkiina baseline waanad yeelataa. sidoo kale hoggaanka nabadgelyada degmada Erar oo madashii ka hadlay ayaa sheegay in nabadgelyadu tahay lafdhabarta ummadda isla markaasina la dagaalamaan kontrabanka iyo dhammaanba wixii cadawga wadankeena. haddaba shirkan unugu asaasiga iyo unugu hoosaadka qabaleeyada qorshaha sanadan cusub ee 2009 oo dhankooda wax ka weydiinay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan isla markaasina u dhaadhicin doonaan qabaleeyada ka yimaadeen. waxa dhammaan halkan ay ka sheegeen maamulka ee noo soo bandhigeenna ee nabadgelyada iyo horumarka intaba wixii aan ka qabanayno diyaar baan u nahay ka qabanaynaa wax walba. isku soo wada duuba xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal ballaaran ugu jira sidoo bulshadiisa u gaarsiin lahaa horumar waara. Cadaalad Cabdi Fataax, telefishinka caalamiga ee Soomaalida Itoobiya, degmada Erar ee gobolka City. haddaynu jaleecno dhinaca ciyaarahana tartan dhinaca orodka ah ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Wajaale. wariyahana arrimaha isboortiga Maxamed Xasan ayaa warbixin muurtaasi ku saabsan inoo haya. tartanka orodka xulka xulashada orodyahanada deegaanka oo lagu soo dhaweynaya sanadka cusub ee 2009 ayaa waxa uu ka qabsoomay maamulka magaalada Wajaale. tartankan orodka ayaa waxa ka soo qayb galay 40 ciyaartoy oo dhanka orodka ah oo ka kala socda xaafadaha maamulka magaalada Wajaale. kahor intaysan ciyaartoyda bilaabin tartanka orodka 5 kiiloomitir ayaa waxa ay qaateen tababar ay ugu diyaar garoobayaan tartankan. kadibna ciyaartoyda ayaa orodka ka bilaabay halka loogu talagalay iyaga oo tartanka ku qaatay wadada laamida ee dhaxmarta maamulka magaalada Wajaale. kadib markuu tartankani soo dhamaaday ayaa waxa warbixin naga siiyay tartankan wasiir ku-xigeenka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha isboortiga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdishakuur Cismaan Khayre. halkan waxaan ka bilaabnay tartanka orodka 5 kiiloomitir ee maamulka magaalada Wajaale kaasoo markii horena ka qabanay maamulka magaalada Jigjiga kaasoo ka qaban doono dhammaan maamulada magaalooyinka iyo gobolada oo ku xulanno wardiyahano u dhashay deegaankeena oo orodka dheeraya si dhalinyaradana moral noqoto isku dhaxgal ka noqoto taasoo xukuumadda qorshayaasha xukuumaddu qaadatay kubadda cagta kubadda laliska orodka feedka inaan kor u qaadno tartanna ka qabano deegaanka dhexdiisa kuwaasoo hadhowna kaga qayb qali doono heer dal aan kaga qayb qaadan doono. dhankiisa orodyahan Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo ah orodyahan u dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u orday dalka Sweden isla markaana kamid ah qabanqaabiyaasha tartankan ayaa waxa uu sheegay inuu sii xoojinayo sidii dhalinyarta deegaanka ugu faa'iideyn lahaa markasta khibradiisa dhanka orodka. maanta aad baan ugu faraxay waxaanan indhahayga aan ku arkay maanta orodyahanin qaaliya in laga heli karayo maamulka magaalada Wajaale. aad baynu u fiican yihiin dhalinyar badan oo tayo leh oo quality ah inay ka soo bixi karayaan baan aaminsanahay. dhammaan dhalinyarta deegaanka waxaan ku dardaarmayaa in ay ku dadaalaan sportiska in ay ku dadaalaan qaybta sportiga qaybta orodka iyaga oo horumar fiican ka gaari karaya. waxaan markasta aniga shakhsiyan la garab taaganahay in aan wixii khibrada wixii maskaxa iyo wixii talaaba aan la garab taaganahay. gudoomiyaha magaalada Wajaale mudane Farxaan Xuseen ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tartankan ayna sii xoojinayaan ka qaybgalka tartamada noocan ah. marka hore waxaan ku faraxsanahay maanta in aan ka qabano tartan loogu soo baxayo deegaanka
tartankaasoo ku saabsan in la helo tartamayaal caalami ah oo ka soo baxa deegaankeena Soomaalida si ay ugu daydaan dhalinyarada inteeda kalena ay ugu daydaan inay ka qayb qaataan tartanada caalamiga ah. Tartanka waxaa ka soo qayb galay 40 xubnood oo ka kala socday maamulada xaafadaha afarta xaafadood magaalada Togwajaale. afartii xaafadood hadda 10 qof ayaa soo baxay. 10ka qofna waxaan rajaynaynaa inay ka mid noqdaan dadka ugu qiimaha badan ama ugu qaayaha badan ee ka soo bixi kara tartanka la qaban doono heer deegaan. waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono. ciyaartoyda ka soo qayb galay tartanka oo aynu wareysi la yeelanay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ka qayb qaadashada tartankan xulashada xulka orodyahanada deegaanka ayna ku rajo weyn yihiin inay kor u sii qaadaan xirfadooda dhanka orodka iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku horumarinayso dhalinyarada deegaanka. tartanka orodka 5 kiiloomitir ee xulka xulashada orodyahanada deegaanka oo hore uga soo qabsoomay maamulka magaalada Jigjiga ayaa tartankan haatan ka dhacay maamulka magaalada Wajaale waxa laga xushay intuu socday 10kii ciyaartooy ee ugu horeysay iyagoo ka qayb galaya tartanka kama dambaysta ah. waxaa sidoo kale tartanka noocan ah laga qaban doonaa maamul magaalooyinka gobolada kale deegaanka iyadoo intuu socdo tartankan ciyaartooyda ay kala faa'iideysan doonaan khibradooda orodka iyo waliba isdhexgalka bulshada. akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidho intaasi waxay noogu eeg warkii oo aad kala socoteen ESTV anigoo Maxamed Axmed ayaa si toos idinku waramayay tan iyo intaan isugu imaan doono wararka la mid ah aniga akhyaarta igala qayb gashay tibinta warkani beesku duubni waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan.